السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين سحبدي مي في عنتين مانتا وجمع نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم. محلدها قصة أنا مانتا سعودية عربية كده عدي نين فقير وعرور يحاس له باشقدي سبحي تهي حمالي صباح كستو سوقتها جيد كيسيرو وحلو قادو كاريوله سوقتها ماذا سوقه si uu dadka wax ugu xamaalo lacagna oo reerka ugu qaado raashin ugu soo gado reerka u geeyo raashinkoodii maalinta waxay ku xiran tahay wuxuu soo xamaalo marka ninkaaneetood maantaba waxaa la dhahaa mararka qaarkood wuxuu soo weeyaa wuxuu wax u qaado weeyaa wuxuu sameeyaa dadka suuqleyda oo lacag yar ka deensada reerkii waxay cunaan si uu ugu keeno marka maalin maalmaha kamid ah waxay dhacday inuu suuqi tagay xamaali soo waayey lacag la-aan kusoo dhacday raashinna reerka ayna haysanin wuxuu sameeyey nin taajir ah oo maxaa la dhahaa daalim ah oo dad aad u xun wuxuu ka daynsaday xoogaa yaroo lacag ah oo maalintaas raashin reerkiisa ugu soo gado raashinkii uu soo qaaday reerka uu geeyay way cuneen noloshooda meesha kasii wateen ninkii daalimka ahaa u yimid gurigoo soo qaraacay maalin kale wuxuu yidhi lacagteeda isii wuxuu yidhi hadda wax ma haayo suuqa u socdaa waxaan soo fiirinayaa wuxuu ilaah isoo sahlo waxaan soo helo aan kaaga keenayaa xoogaaga aad igu leedahay marka wuxuu yidhi maya hadda u baahanaa lacagteeda markastaba deen unbaa qaadataa waa la ii sheegay suuqa dhan ay ii sheegeen qofaan deen kugu lahayn ma laha nin yahow lacagteeda u baahanaa saacaddan la joogaa isiinaysaa ilmihii iyo xaaskiiyo hortaagan buu ninkii ku fadeexeynaya oo wuxuu ugu canaanayaa cunug yar oo dhalo kale ninkaaneetood banaanka nin faqri oo xamaaliyo ka yahay laakiin gurigiisa boqoruu ku yahay ilmihiisa xaaskiisa waxay u arkaan qofkii aabihii guriga oo wax kasta usoo maxaa la dhahaa u keenayay reerkaanu wuxuu u yahaybo boqorkoodii laakiin ninkii faqriga ahaa oo lacagta ka deensada waa lacagtiisuu rabaa ninkii meeshuu ku canaantay meeshuu ku bahdilay markuu iswaawaaline baa kortooda soo baxay ilmaha hortooda ku garaacay xaaska hortooda ninkii dharkaa ka dhacay markuu saas u garaacayo adaanaa yeeraya marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar meesha laga dhahoyaa masaajidkii markuu adaanka maqlay buu gacmaha kor u taagtay wuxuu yidhi ilaahayow waa ii jeedaa xaalkiisuu yahay ninkaaneetood lacagtiisa waa igu leeyahay laakiin siduu nafteeda ii baabi'inayo ilaahu iiga ar ilaahu dhibaatada maanta uu i gaarsiiyey oo qalbigeyga iyo reerkayga qalbigiisa oo gaaraysiiyey ilaahu iiga ar rabbiyow iiga qaad maxaa la dhahaa xaqayga igaga dhici alaa ii taxaal ninkii markuu bahdilaadiisa dhammaystay wuu tegey kii faqiirkan gurigiisa ka galay noloshiisa iska sii watay dhowr maalmood kadib lacaguu helay ninkii gurigiisuu garaacay wuxuu yidhi waxaan u baahanahay hebel waxaa la yidhi hebel ma joogo wuxuu yidhi lacag deen ugu leeyahay ballantana maanta waaye inaan siiyo deentiisii ninkii u baahanahaye ninka hala ii keeno ninka waxaa la yidhi isbitaaluu jiraa wuu xanuunsan yahay cisbitaaluu ninka ku jiraa marka waxay dhahayey hala ii geeyo cisbitaalkaa la geeyey gudaha maana la gelinin banaanka asoo taagan oo dadkii reerkiisa familkiisa meesha fadhiyo wixii weydiiyey maxaa ku dhaco yiri waxaa la yidhi ninkaaneetood xanuuna kusoo booday marka cisbitaalka la keenane waxaa la yidhi waxaa ku hayo kansarka faafo oo xun qaarkan dambe dhanne wuu kaaga jiraa hadda lagu jarinne waa kugu sii faafayaa qaarka dambe labada lugood in la jaro waaye haddii kaleentood ilaa iyo korka dhan uu qaadanayaa dhibaatadaasna waa sii weynaanaysaa hadda laakiin gaaridaa leedaho haafkana laga jaraya haye alaa itaxaal ninkii way ogolaadeen qaarka dambaa laga jaray labada lugooda laga jaray isla markiiba ninkaani u sheegayan mogta reerkii isla markiiba waxaa laga jaray labadii lugood markii oo haddana laga soo jawaabay waxaa la yidhi labada lugood waa la jaray laakiin weli wuu sii faafooyaa cudurkii wuu sii faafooyaa calaa itaxaal ninkii wuu naxay wuxuu yidhi lacagtaan igu lahaa maanta ahayd ballanta inaan keeno reerkii u dhiiba lacagta waa tanaa yir igahooda markaasuu wuxuu soo xasuustay maalintii inkaartii uu inkaarayey iyo maxaa la dhahaa ilaahay degdeg siduu ugu soo saaray ninkaanitod marka qaarkood ducadaada ama inkaartaada waxaa laga yaabaa isla markaas sida meeshaan oo kale qisadan oo kale inay soo baxdo marna waxaa laga yaabaa inay gadaal u dhacdo ehelkaada iyo dadkaagii dambe hadday iyagana daalimin yihiin inay kasoo baxdo marka waxaa laga yaabaa marka ninkaanetod inuu markaasito ilaahay u aqbalo ducadiisa
waxaa aad u adag adduunka adoo xaq leh dhibanana ah qofkii ku dhibay markaas inaa u fidistid buugga naxariista oo aad inkaarin way adag tahay ilaah inuu kugu aadiyo moogiye marka rabbi subxana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu aadiyo haddii qof oo aan dhibna gaarsiiyo haddii aan markaasitod aanan dhibaato weyn asin aan ula raadinin oo ajar si aan ugu helno waxaa la xaq qofka markuu leeyahay laba mida u furan marna waxaa la yidhi xaqaaga waa dhacsan kartaa oo waa lagu ogol yahay xaqaa lagaa gale oo inkaar ama gacan waxa ku subi kartidbo waad ku dhacsan kartaa marna waxaa la yidhi xaqaaga adigoo og way dayn kartaa ajaraa ku helaya xasanaad marka ilahay waxaan ka baryaynaa in dadkii sabro oo sabarkooda xaqooda ku helo ilahay inuu naga dhigo ninkaaneeto deertaan noloshiisa way dhammaatay maxaa la dhahaa qaarka dambena waa laga jaray cudurkiina wuu sii socdaa macnaha waxaa qof kasta way dhimanayaan laakiin silic uu ku dhimanaya dhibaatada uu gaarsiiyey waa nin daalim u ahaa dhibaatada uu gaarsiiyey ninkaa miskiinka ah xaqan wuu lahaa isla lacagtana wuu lahaa laakiin dhibka gaarsiiyey bahdalaada uu bahdilay waxa dhan ninkaa xaqiisa ilaah ka dalbaday xaqiisa degdeg uu ilaahay ugu soo saaray tan anaga way naga weyn tahay laakiin waxaa muhiim ah mar kastaba shaydaanka inaad ku cudbilaysatid maxaa la dhahaa xalne si kalena u raadisid ninkaan meel xal ka raadinaya ma lehen qofka weynaa madaxiisa lugta ugu qabtay macnaha waxaa waaye meeluu ku fakanaya ma lehen rabbi subxana watacaala isku xiray ilaah u dhibtay arrintiisa meeshaan loogu xaliyey marka saaxiibayaal qisadeen maanta intaas noogu ekeed rabbi subxana watacaala waxaan ka baryaynaa in uu maxaa la dhahaa oo garabkeena oo galo adduun aakhir noo naxariisto raxmadiisa waasicne jannata firdows aclaa kuwa ku kulma naga wada dhigo basiishaka jannata firdows aclaa waa yar tahay rabbi subxana watacaala raxmadiisa weyn marka ilaahay noo waasiciyo kulligeen ilaahay meeshaan iskugu wada keeno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu